waxaan leeyahay hambalyo madaxweynaha cusub oo la doortay waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay hawshiis u fududeeyo idinkana waxaan idinka codsanaynaa guud ahaan shacabka reer Baydhabo iyo koonfur galbeedba inaad gacan ku siisaan shaqadiisa adag oo runtii loo doortay waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeyno caawa allah u naxariistay halgamaa maanta naga baxay oo geeriyooday maxamuud yuusuf muure oo ka mid ahaa howlwadeenadii SYL-ka ragga ugu dambeeyey oo halganka SYL-sha qaybta ugu muhiimsan ama qaybaha ugu waaweyn ka soo qaatay haddaad xasuustaan waa ninkii loo talaalay allah u naxariistee ra-iisul wasaarihii hore Cabdullaahi Ciise markii uu socday New York iyo London oo laga baqay in la sumeeyo ninkii u ekaa oo naftiisa u huray macnaha inuu isagu la talaalo haddii ay sun tahayna uu dhinto allah u naxariisto jannadiisii naxariista allah siiyo kulli ummadda Soomaaliyeed iyo cayladiisana samir iimaan allah ka siiyo nin qiimo leh oo wadani ah yuu ahaa dadka saas oo kale ahna runtii waxaad moodaa hadda inay aad iyo aad loogu yaryihiin laakiin waxa ay sameeyeen SYL-shii isagu hadda dadka ugu dambeeyey ka mid yahay waxay mudan tahay in lagu daydo maanta waxay ahayd caymisaarkii aan kulligeen u wada nimid saakay madaxweynuhu khudbadiisii koobneyd oo runtii wanaagsanayd uu ka jeediyey wuxuu ku muujiyey inuu leeyahay wax badan caawa laga sheegay wanaaga wuxuu ku muujiyey inuu leeyahay vision aragti dheer inuu leeyahay xaqiiqdiina aragtidaasay tahay ay ku dhisan tahay waxqabadka laga sugaayo shacabka reer koonfur galbeed ay ka sugayaan 4 sano ee soo socota wuxuu muujiyey uu noo caddeeyey uu noo sheegay baahida dhabta ah oo gobolkan ka jirta ay ugu horreyso arrimaha amniga oo caawa dhowr jeer lagu celceliyey arrimaha amniga runtii waa arrimaha ugu muhiimsan dowladdan oo ay tahay dalkan inaan kusoo dabaalno amni buuxa khaasatan gobollada koonfureed oo ay joogaan qolada inkaabta qaba ee shabaabka ah oo arxadarrada ah oo u jooga Soomaaliya inay dib u dhigaan ay burburiyaan shacabka Soomaaliyeed hantidooda iyo waxa ay layn karaan ay laayaan marka arrintaas amniga ah waa arrin noo wada taalla insha Allah hadduu ilaahay yiraahdana waxaan ka geysanaynaa gacan buuxda hadduu ay yiraahdo wuxuu sheegay baahida jirta ka jirta arrimaha caafimaadka oo ognahay dadka reer koonfur galbeed inaysan haysan caafimaadkii u baahnaayeen daryeelkii caafimaadkii u baahnaayeen loo baahan yahay in loo dhiso cisbitaallo oo maanta uu ku sheegay madaxweynuhu in inay u baahan yihiin dadkaas inay helaan caafimaad lacag la-aan insha Allah intii karaankeena ah dowladda federaalka waxaan ballan qaadaynaa inaan gacan ka siino wuxuu kaloo sheegay arrimaha waxbarashada carruurteenna waan ognahay intooda badan inaysan iskuul aadin khaasatan gobolkan iyo meel walba oo Soomaaliya ah because bacdama aysan haysan dhaqaalihii u baahnaayeen ay ku dhigan lahayn iskuulladaas marka waa waajibaadka dowladdeena saaran annagoo la shaqeeya dowlad goboleedyada inaan soo celinno iskuulladii lacag la-aanta lagu dhiganayay insha Allah iyada laftigeena gacan buuxdaan ka geysana hadduu ay ka yidhaahdo bishinkiisa ama aragtidiisa fog iyo waxqabadka laga sugaayo wuxuu kaloo ku daray arrimaha dib u heshiisiinta oo ay tahay inta uu sheegay waa arrimaha dowladdan anugu madaxweynahan ka ahay ay u tahay priorities ama muhiimadda ay u tahay dib u heshiisiintu keliya maaha koonfur galbeed laakiin Soomaaliya dhan yaa loo baahan yahay dib u heshiisiin bacdana muddo dheer ummadda walaalaha ah ay dhibaato badan kala sheeganayaan marka dib u heshiisiintu waxaan ognahay maaha wax hal mar keliya ah maaha waa wax taxano ah oo mar walba loo baahan yahay dadka lagu dhex jiro oo dib u heshiisiin loo sameeyo mar walbaba aysan ahayn wax hal mar ama laba mar dhacaya maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed dhaqan wuxuu lahaayeen markii abaaraha iyo dhibaato ay jirto
ama marka la yidhaahdo roob baa da-ay inay ku dagaalaan waaraha iyo meelaha biyaha yaaliyo naq ay ku dagaalaan. waxaa kusoo kordhay dib u heshiisiinta naftigeeda dad ku dagaala arrimaha siyaasadda oo runtii wax cusub ah. waxaad og tihiin sidaan anagu nimid 2 sano ugu dambeysay dib u heshiisiin badan inaan ka galnay dalka. maxaa ugu dambeysay oo aan ka shaqeynaynay 2 beelood waala ah oo ku dagaalaya Hirshabeelle khaasatan gobolka Jowhar agaarkiisa Shabeellada Hoose Shabeellada Dhexe iraahdo degmooyin koogaa oo aan xalay u fadhinay 2 beelood oo waala ah inaan dhex galno aan u helno xal waara. waxaa ka horreysay marka yaa ka horreysay waxaa kasii horreysay gobolada dhexe yani dhihi gobolada dhexe maxaan ku yidhaahdaa Hirshabeelle naftigeeda Maxaas iyo Moqokori oo 3 isbuuc ka hor iyaguna ay ku dagaaleen dad waala ah halkaas oo aan u dirnay wafdi weli uu ku maqan yahay. gobolada dhexena sidaas oo kale marka laga soo bilaabo heshiiskii Gaalkacyo oo hadda muddo 2 sano ah aysan ka dhicin wax dhibaato ah aysan ka dhicin. insha Allah koonfur galbeedna waxaan saaraynaa xoogga gacan yaan ku siinayna madaxweynaha iyo dowladdiisa in dadka waalaha ay koonfur galbeed aan kala shaqeyno arrimaha dib u heshiisiinta. hadalkiisu wuxuu kusoo koobay wada shaqeyn in la helo xiriir wanaagsan oo u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. waa waxa loo baahan yahay haddii intaas uu sheegay dalkoo dhan aan ka hirgelinayno aan ka shaqeynayno waxaa loo baahan yahay wada shaqeyn u dhexaysa dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. dowlad goboleedyada keligood kama shaqeyn karaan intaasoo maxaan ku yidhaahdaa baahi jirta. dowladda federaalka ahna kama shaqeyn karto haddaysan ka helin gacan iyo wada shaqeyn iyo xiriir wanaagsan haddaysan ka helin dowlad goboleedyada. waxaa loo baahan yahay marka in la isweydiiyo wada shaqeyntaas shacabka Soomaaliyeed waa xaqiiqa waxay sugayaan in dowladoodu ay noqoto dowlad aan khilaaf lahayn oo khilaaf banaan ka yahay oo wada shaqeyn iyo soo dhawaansho wanaagsan leh. in la isweydiiyaa loo baahan yahay marka waxaa loo baahan in la isweydiiyo yaa loo shaqeeya. marka taas la fahmo oo mabaadi' ay noqoto way sahlan tahay in la xaliyo wixii khilaafaad yimaada. waxaa loo shaqeeyaa dadka sovereignty-ga Soomaaliya iska leh shacabka Soomaaliyeed oo 15 milyan yaa loo shaqeeyaa. iyagaa dowladda ah, iyagaa qaranka ah, iyagaa sovereignty-ga ah, iyagaan u adeegnaa, iyagaa wakiil laga dhigtay, iyagaana doortay. horta taas yaa loo baahan yahay in la isweydiiyo oo laga jawaabo. qof walboo mas-uula anigu aan ku sarreeyo waxaa la rabaa in la fahmo dadka Soomaaliyeed iyagaa iskale dowladnimada qarnimadan iyagaa iskale iyagaa na wakiishay. bacdama anigu aan ahay ninkii ugu sarreeyey oo ay wakiisheen dowladda dhexe ama dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada maxaa ka dhexeeya? waxaa ka dhexeeya aniga ay wakiisheen in aniguna aan wakiishay dowlad goboleedyada oo hawshii la dedejiyo hoos loo dhigo oo iyaguna wakiil ka yihiin shacabkoodii doortay iyo dowladda dhexe oo Soomaaliya dhan mas-uulka ka ah. haddaanan la isku xirin arrintaas 2 arrimood la isku xirin oo laga dhigo dowlad goboleedyadu inay yihiin dad gaar ah ama dowlado gaar ah maxaan ku rahaa wakiilna aan u ahayn guud ahaan Soomaaliya ama dadka ay matalayaan ama aysan wakiil u ahayn madaxweynaha qaranka waxay noqonaysaa marka dowlad goboleed walbaba inay u aragto inay gaar ka tahay dowladda dhexe. waana waxyaabihii keenay khilaafaadkii bilihii lasoo dhaafay aada maqlayseen iyo in shaqadii labada qaybood ka dhexaysay ay joogsatay. ummadda Soomaaliyeed qalbi jab ku riday caalamkuna ay nala yaabeen. waxaan rabaa inaan idinla wadaago haddii madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu aysan fahmin taas inta uu sheegay Cabdicasiis oo kulligeena barnaamijyadeena dowladnimadeena iyo shaqadeena ku jirta waxba kama qaban karno. caalamka doonaya inayna kaalmeeyaanna ama gacan nagu siiyaan ka heli mayna gacan.
maxaa yeelay annagii yaas khilaafsan oo iska soo horjeedna marka waxaa la rabaa in la fahmo annagu waxaan xilka u haynaa ummadda soomaaliyeed oo aan wakiil u nahay muddo kooban markay doonaanna waa kaa qaadaan markay doonaanna qofkay rabaan ayay doortaan marka taasaa loo baahanya maxay tahay wax looga shaqeynayo marka waa fahmnay cidda loo shaqeeyo oo waa dadka soomaaliyeed waxa looga shaqeynayo ay u baahan yihiin maxay tahay waxa looga shaqeynayo waxa weeye dantooda danteenna ma ah markuu qof ka hadlayo kursi waa dan shaksi ah markuu qof ka hadlayo qoys waa dan shaksi ah markuu qof ka hadlayo dan qabiil waa shaksi laakiin ummadda soomaaliyeed waxay rabaan inaan uga shaqeyno dantooda guud iyay rabaan ummadda soomaaliyeed waxay rabaan inaan uga shaqeyno sharafkooda inaan usoo celino iyo karaamadooda labadaas arrimood yaa ugu weyn danta guud waa inta hadda uu sheegay cabdicasiis oo annagana burgaamyada noogu jira oo amniga kow ka yahay adeega bulshada inaan gaarsiino meel walba ay joogaan iyo wada shaqeyn dhexdeenna dowladda dhexdeeda inay yeelato iyo dowlad goboleedyadii dowladda federaalka ah haddii intaas la fahmo khilaafaad ma imaanayo haddana insha allah waxaan rajeynayaa sanadkan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe in shacabka soomaaliyeed aysan marna ka maqlin in lais haysto ama lais khilaafsan yahay hadduu ilaahi yidhaahdo waxaan wada fahamsannahay annagoo idin inaan ummadda soomaaliyeed ina wakiilatay ummadda soomaaliyeed inay leeyihiin dowladnimadan iyo qarankan annagana aan u nahay adeegi labo waxaan aaminsannahay inaan maslaxadooda iyo dantooda guud aan ka shaqeyno sharafkooda iyo karaamadooda inaan soo celino intaas hadday mabda' noo tahay ma imaan karto iskhilaafaad iyo iskahorimaad ma imaan karaan waxaan weydiisanayaa shacabka reer koonfur galbeed sidaad maqasheen cabdicasiis waa nin wanaagsan qadar allah iyo halka ku yimid saldanad allah bixiya qofkii raba ma heli karo qof waayi karana ma jiro hadduusan ilaahay ogolaanin inaan la wada shaqeyno kulligeena inaan la wada shaqeyno gacan siino ku kaalmeyno garab ugu noqono in koonfur galbeed la tartanto gobollada kale ee dalka la tartanto waxaa kaloo aan idin weydiisanayaa gacan inaad siisaan dowladda federaalka ah naftigeeda oo aad garab noo noqotaan oo taageerayaal aad noo noqotaan wada shaqeyntaas aan wada leenahay waxaan aaminsannahay muddo yar gudaheeda soomaaliya inay dib ugu soo noqonayso ay noqonayso wadamada ugu barwaaqada badan wadamada ugu nabadgelyada badan wadamada adduunka laga xushmeeyo oo ugu horeeya insha allah hadduu ilaah yidhaahdo wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu